محمد إربط waxaan kamid ahay asaasayaasha Xarunta Ifiye akhriska qoraalka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ujeedooyinkii ugu waaweyn ee xaruntan baahideeda ama nagu dhaliyay inaan asaasno waxay ahayd markaan aragnay dhibaatada badan ee jirta dhalinyaro badan aysan haysan meel ay wax ku akhristaan meel hadda jaamacadaha dhameeyaan aysan ka helin buugaag ka baxsan manhajka waxbarashada ama akademiga qabadka ugu weyn ee hadda aanu sameynayna waxa ugu horeeyay inaanu asaasnay Maktabada Ifiye oo ah meel bilaasha ardayduna ay wax ku akhrisan karaan cid walba oo danaysa akhriska iyo qoraalkana ay iman karaan waqtigoodana ku qaadan karaan buugaagta xarunta yaal waxa ugu badan buugaagta maxay ahayd akademiga buugaagta sheekooyinka buugaagta maxay ahayd taariikhda sayniska maxay ahayd ganacsiga hal abuurka iyo dhiirigelinta akhriska qoraalku waxay kobciyaan maanka qofka wax badan akhriya iyo qofka aan akhriska aqoon labada isku mid maaha taas awgeedana sabab u ah Maktabada Ifiye la furo buugaag badan lagu kaydiyo iyadoo dadku si bilaash u imaanayaan Soomaalidu waagi hore maadaama ay dad hadlo u ahaan jireen waxa rabnaa jiilka cusub ee hadda soo koraya ama soo kabcaya inay noqdaan dad wax qora sidoo kalena wax akhriya waxaan ka helay maktabadan inta badan marka waqtiga waxaan ku bixiyaa inaan imaado oo wax badan akhristo oo ka faa'iideysto runtii buugaagta inta taalna waxay iskugu jirtaa buugaag aad u fara badan luqad walbana way ku qoran tahay dhalinta kale oo magaalada Muqdisho ku nool ayagana waxa ku baraarujinaya intii aan maxaa la dhahaa sheeko u fadhiisan lahayn hoteelada iyo maqaayadaha u fadhiisan lahayn aan nafteena horumarina aan nafteena u faa'iideyno maktabadan iyo xaruntan aan ka faa'iideysano buugaagta qiimaha badan ee inoo keeneen oo waliba xataa sida bilaashka ah noogula furay inay ka faa'iideystaan ay ku baraarujinayaan